waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula hoy dalka lagu maamula dalka lagu kala hagaa weeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inuu muhiim بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن وناكسن داوديال كسو دhowaada barnaamijka hibeynta Ramadaanta iyo hadiyada dastuurka oo ah barnaamij aan ugu tala galnay inaan ku dhiirigelino muwaadiniinta Soomaaliland inay ku bartaan xaq uu dastuurku u damaanad qaaday waxaanu ugu tala galnay barnaamijkan inaan muwaadiniinta Soomaaliland ku weydiino su'aalo qofkii gartana oo aan ku guddoonsiino qadar lacag ah oo uu ku afro iyo buuga dastuurka kii garan waayena waxa rajaynaya inay ka faa'iideysan doonaan barnaamijyada kale hadduu Allah awoodo loo galaado daawadayaal hadda waxa barnaamijkan iska kaashaday oo barnaamijka waxa iska kaashaday wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka iyo wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland haatan waxaan ku bilaabi doonaa qofka ugu horeeya oo nu weydiin doonaa su'aasha ugu horeysa dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula magacaaga iyo halkaad ka degantahay magaalada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore magacaygu waa Axmed Maxamed Gahir magaalada Hargeysa waxa ka deganay xaafadaha la yiraahdo shacabka waxa sheegtaa mid ah hababka uu madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku xilka kaga tagi kara madaxweynaha ama madaxweyne ku xigeenku waxa xilka uga tagi kara waxa sheegaya madaxweynuhu xilka uga tagi karo lambar 2 waxa weeyaan madaxweynuhu hadii uu dhinto xilka uga tagi kara wasda aad baad mahadsan tahay guuleystaad noqotay waad ku guuleysatay hadiyad yar waxaan ku siin doonaa afura aad baad mahadsan tahay waxaan ku siin doonaa qadar yar oo afro lacag ah iyo buugii dastuurka sad u aragtaa barnaamijkan waxaan u arkaa marka hore qofku hadii uu maanta garan waayo su'aasha kamida dastuurka wadanka inuu ku dhiiranayo inuu buugii soo iibsado oo raadiyo oo dib u xasuusto oo aad u akhriyo ayaa laga faa'iideeyaa buugga adiguna waxaad isku dayi doontaa inaad si insha Allah dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula magacaaga iyo halkaad Hargeysa ka degantahay walaalo magacayga waxa la dhahaa ayaan Maxamed Aadan baa la dhahaa Hargeysana iyo Hargeysan ka deganahay madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenku muddo intee lag bay wadanka hayaan madaxleedkooda waxay hayaan 5 sano aad baad mahadsantahay guuleystaad noqotay waanan ku guddoonsiin doonaa afur yar iyo buug aad baad mahadsan tahay guuleystaad noqotay waxa ku leenahay qadarka yar afurka ah iyo buuggaasi dastuurka ayaad ku guuleysatay sidoo aragtaa barnaamijkan hadda ma sha Allah barnaamij aad u fiican baan u arkaa alxamdulillah wixii dambana waan ka soo qayb gali doonaa insha Allah aad baad mahadsantahay dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula magacaaga iyo halka degan magacaaga Cabdishiid Baradha waxaan deganay magaalada Hargeysa waxa sheegtaa mid kamid ah shuruudaha lagu waayi karo waxa sheegtaa mid kamid ah shuruudaha lagu waayi karo xubinnimada golaha guurtida waxa lagu waayi karaa hadduu qofku xilka laga qaadi karo soo ku waayi karo xilka xubinnimada golaha guurtida waxa ku waayi karaa isagoo sameeya wax qaran dubis ama sameeya kacdoon golaha dhexdiisa aad baa mahadsan tahay su'aashaasi waa isku day wanaagsan baad samaysay laakiin kuma guuleysan aad baa mahadsan tahay walaal dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo
magacaaga iyo halkaad degan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي وأنا مع عبد ورسمة واحد يقلني حافظة شيخ نور waxaa sheegtaa qaybaha ay ka kooban tahay hay'adda garsoorka. كرسورك محكبته iyo xeer ilaalinta aad baad mahadsan tahay waa ku guuleysatay waxaan ku siin doonaa abaalmarintaada. dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula. aad baad mahadsan tahay walaal waa ku guuleysatay waa afur iyo buuggii dastuurka sidoo aragtay barnaamijka aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah soo dhaweynaya aad baad mahadsan tahay ayada mudan dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula. magacaaga iyo halkaad deganta. magacaygu waa Makhair Axmed Jaamac waxaan kala xafidaa New York la yiraahdo. waxaad sheegtaa qaybaha ay ka kooban tahay waaxda fulinta. qaybta laba ma garanay laakiin laba weeyaan. aad baad mahadsan tahay oo isku dayday. dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula. magacaaga magacaygu waa Mustafa Maxamed Odawaa waxaan deganay degmada Madheera aan deganay. waxaad sheegtaa mid ka mid ah hababka uu madaxweynuhu ama madaxweyne ku-xigeenku ay xilalka uga tagi karaan. horta qodobo dastuuriya jira oo madaxweynuhu xilka uga tagi karo waxaana ka mid ah markaan anigu rayaanta isku dayo inuu xaalad caafimaad oo kale soo daristo aanu caafimaadkiisu aanu ku sii maamuli karin caafimaad darro awgeed. qodobkaas waa qodob waxaa kaloo ka mid ah in aanu shacabku rabin aanu bulshada soo dooratay ay ka noqdaan aanay waxyaabo uu sameeyey ficilo ku kacay darteed uga tegey ula kacay darteed ana uga tegi karaa. waxaa kale uga tegi karaa in cimrigii ajkii uu ku shaqayn karay u dhaafayba oo dhowr iyo 80 howlgab uu noqday. waxaa kaloo ka mid ah inuu madaxweynuhu lagu qabtay waxyaabo kiisas hore uu soo galay ama waxyaabo hore oo baaggaroogiisa laga helay ama sida dowladaha aynu isku xuduudaha wadaagno oo laga dareemay inuu sameynayo isku dar iyo wax noocaas shacabku meel aanu rabin oo la sii isagoo u hiigsanayo. aad baad mahadsan tahay saas iskugu dayday walaal laakiin su'aasha wad garan weyday. aad baad mahadsan tahay isku day wanaagsan. waa maas dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula. magacaaga iyo xagga degan. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud Cali Maxamuud oo degan magaalada Hargeysa waxaan deganahay xaafadda Boqolgotiga. waxaad sheegtaa muddo xileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka. bismillaahir rahmaanir rahiim su'aashan taas ku dayo marka Soomaaliland la joogo oo 5 sano ayuu xilkiisu ku eegyahay 5 sano madaxweynaha iyo 5 sano madaxweyne ku-xigeenka isku calaalis 5 sano labadooda ayuu xilku ku eegyahay 5 sano buu ku eegyahay labadooda waa 5 sano. aad baad mahadsan tahay waad garatay su'aasha. ayuu mahadsan tahay. aad baad mahadsan tahay guuleystaad noqotay lacagtaasi iyo qadar waxa weeyaan afura iyo buuggii dastuurka seed u aragtaa barnaamijkan. wallaahi barnaamijku waa aad buu fiican yahay waa barasho dastuurka la baranayo dad waaweyn oo meesha arkay ma garanayn bade marka waxaan waa barasho qof kasta isku dayo gartaa minuu garan dastuurka mayl ma socon wallaahi laakiin hadda la bilaa la soconaya insha Allah. aad baad mahadsan. ayada mudan dawadayaal intaasaan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijka hibaynta Ramadaanta iyo hadiyada dastuurka oo ahaa barnaamij aan ugu talagalnay muwaadiniinta Soomaaliland inaanu ku dhiirigelino anagoo doonayna inaanu barno xaqa uu dastuurku u damaanad qaaday muwaadiniinta. waxaan weydiinay su'aalo la xiriira arrimaha dastuurka. waxaa daawanayseen qaar ka mid ah inay ka jawaabeen oo ay garteen oo guddoonsiinay hadiyadihii ay ugu talagaleen wasaaradda dastuurka iyagoo kaashanaya wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta. intaasaan ku soo gunaanadi doonaa barnaamijka dhinaca kamarada iyo farsamada waxaan u mahadnaqayaa oo iga caawiyay Cabdicasiis Mursal soo jeedintuna waa anigoo ah Mule Ibrahim Dhakhtar waxaad ku dhaafaynaa Ramadaan Kariim. dowladnimo waa dastuur iyo wakala dambeyn xornimo lagu doojiyo dalka lagu maamula.
maamula hoy dalka lagu maamula dalka lagu kala hagaa daweeyaan barashadiisu dadkayga wada akhriya dastuur waa inoo muhiim